daawadayaal kusoo dhawaada wararka arrimaha dibadda ee Bakaal Media. Qodobada daawad doontaana waxaa ka mid ah dalalka Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta oo ah dalal xulafaa ahna xiriir wanaagsan oo qoto dheer oo walaalnimo iyo derisnimo iyo siyaasad wadaag isugu jira ayaa markan waxa soo kala dhaxgalay khilaaf aad u xoogan. Haddaba khilaafkan muxuu salku ku hayaa maxayna yihiin hadallada kulul ee mas'uuliyiinta labadan dal ay isweydaarsaneen. dhanka kale waxaa daawan doontaan Taliban ayaa waxa ay isku ballaarinaysaa dalka Afghanistan iyaga oo digniin u jeediyay dhammaan ciidamada shisheeye kuna amray inay isaga baxaan dalka. waxaa lagu yiri ciidan kasta oo shisheeye ah oo ka baxa dalka Afghanistan wixii ka dambeeya muddadii gaashaanbuurta NATO u qabatay ee bisha September waxa uu dalka halis ugu jiraa in ururka Taliban uu qabsado. walwalkan ayaana ku soo aadaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya in askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka lagu wado inay ku sii nagaadaan dalkaasi ay u ilaaliyaan howlaha diblomaasiyadeed iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kabul. howlgalka military ee NATO ee ka waday dalka muddo 20 sano ah ayaa haatan dhamaaday, balse rabshadaha ka socda dalka ayaa sii kordhaya iyadoo ururka Taliban ay la wareegeen dhul badan. xilli ciidamada Afghanistan ay isku diyaarinayaan inay kaligood la wareegaan amniga ayaa waxaa sii kordhaya walaac laga qabo mustaqbalka Kabul iyo halka uu ku dambeyn doono. afayeen u hadlay Taliban oo lagu magacaabo Suhail Shaheen ayaa waxa uu sheegay in qabsashada Kabul military ahaan aysan ahayn siyaasadda Taliban, balse isaga oo u waramaya mid ka mid ah warbaahinta waxa uu sheegay in aysan jirin ciidamo shisheeye oo ay ku jiraan qandaraaslayaal military oo sii joogay magaalada. waan falcelin lahayn go'aanka ugu dambeeyana waxa uu la jira hoggaankeena, ayuu yiri Mr. Shaheen. diblomaasiyiinta iyo hay'adaha NGO-yada iyo rayidka kale ee ajaanibta ah ma bartilmaameedsan doonaan Taliban, ayuu hadalka raaciyay. loomana baahna awood ilaalin oo joogto ah. waxaan ka soo horjeednaa xoogga military ee shisheeyaha, ma diideyno diblomaasiyiinta, NGO-yada iyo shaqaalaha iyo safaaradaha shaqeeya. taasi waa wax ay dadkeenu u baahan yihiin, wax khatar ahna kalama hor imaan doono, ayuu sii raaciyay Mr. Shaheen. Mr. Shaheen waxa uu ku tilmaamay ka bixitaanka toddobaadkii hore ee garoonka diyaaradaha ee Bagram oo mar ahaa saldhiggii ugu weynaa militariga Mareykanka ay ku laayeen Afghanistan inuu ahaa daqiiqado taariikhi ah. heshiis ay la galeen Taliban, Mareykanka iyo xulafadiisa NATO waxay ku heshiiyeen in dhammaan ciidamada laga saaro dalkaasi, iyadoo dhanka Taliban ay sameeyaan ballanqaad ahaa in ay ka helaan ama aysan ka helin ururka in aan loo ogolaan Al-Qaacida ama koox kale oo xag jir ah inay ka howlgasho aagga ay ka taliyaan. madaxweyne Joe Biden waxa uu mudeeyay 11 September oo ah 20 guuridii ka soo wareegtay weerarkii 9kii bishii 11aad ee Mareykanka lagu qaaday sanadii 2000 in ciidamada Mareykanka ay si buuxda uga baxaan dalkaasi, balse wararku waxay sheegayaan in ka bixitaanka laga yaabo inuu ku dhamaado maalmo gudahood. mudane ka tirsan baarlamaanka Afghanistan oo ku hadlayay magaca dowladda Afghanistan waxa uu sheegay in ka bixitaanka ciidamada shisheeye uu ku socdo si wanaagsan. xildhibaanka oo lagu magacaabo Ridwan Murad waxa uu sheegay warbaahinta in dowladdu ay diyaar u tahay wada hadallo iyo xabad joojin ay Taliban la gasho haddii ay Taliban dhankooda diyaar u yihiin nabad ayna ka go'an tahay qaadista tallaabadan. kadib 20 sano oo ay dalka joogeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska, hadda waxay doonayaan inay isaga baxaan Afghanistan. madaxweyne Biden wuxuu ku dhawaaqay in 2,500 ilaa 3,500 oo ah ciidamada Mareykanka ee ku haasan Afghanistan ay ka bixi doonaan marka la gaaro 11 bisha September ee sanadkan nagu soo aadan. dalka Ingiriiska ayaana sidoo kale kala baxaya dalkaasi 750 askari oo ku harsaneed laga soo bilaabo weeraradii Al-Qaacida ee 9kii September ee ka dhacay Mareykanka oo laga soo qorsheeyay lagana hagayay Afghanistan ayaa keenay isbahaysiga uu hogaaminayo Mareykanku uu xukunka ka tuuro Taliban, isla markaana si kumeel gaar ah Al-Qaacida looga saaro dalka Afghanistan. dhaqaalaha 20 sano ku baxay militariga iyo ka qaybgalayaasha kale ee amniga waxa uu ahaa mid aad u badan. in ka badan 2,300 oo askar Mareykan ah ayaa la dilay, in ka badan 20,000 waa la dhaawacay oo ay weheliyaan in ka badan 450 ee ka soo jeeda boqortooyada Ingiriiska iyo boqolaal kale oo ka soo jeeda wadamo kale oo xulafaa la ah Mareykanka gaashaanbuurta NATO haba ugu badnaatee. laakiin waxaa la qabaa dhibaatadaasi Mareykanka iyo Ingiriiska Afghaanistaaniyiinta oo waxaa laga dilay in ka badan 60,000 oo ka tirsan ciidamada amniga iyo dad badan oo rayid ah. waxaana lagu qiyaasaa kharashka maaliyadeed ee canshuur bixiyaha Mareykanka ee ku dhow $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah inuu ku baxay dagaalkaasi. aynu wax yar dib ugu noqono oo aan eegno sababta ay ciidamada reer galbeedku markii horeba u galeen Afghanistan iyo wixii ay damacsanaayeen.
muddo 5 sano ah laga soo bilaabo 1996 ilaa 2001 koox loo aqoonsaday argagixis heer caalami ah oo ah Al-Qaacida waxay awood u yeelatay inay galaangal u yeelato Afghanistan markaas oo uu hogaaminayo hogaamiyihii Al-Qaacida Osama bin Laden. ururkaasi waxa uu sameeyay xiriir lagu tababarayo argagixisada waxayna qorteen qiyaastii 20,000 oo ah dad taabacsan oo ka kala yimid meelo kala duwan oo adduunka ah. waxay sidoo kale qorsheeyeen weeraradii mataanaha ahaa ee lagu qaaday safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania sanadku markuu ahaa 1998 waxaana ku dhintay 224 qof oo u badnaa rayid Afrikaan ah. Mareykanka isagoo adeegsanaya xulafadiisa Sacuudiga waxa uu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo Taliban inay ka saaraan Al-Qaacida Afghanistan balse way diideen kadib weeraradii 9 Sebtembar ee 2001 bulshada caalamku waxay ka codsatay Taliban in lagu soo wareejiyo kuwii mas'uulka ka ah weerarkaasi laakiin mar kale Taliban waa ay diiday. dadka falanqeeya arrimaha ayaana waxay qabaan in Afghanistan halis ay ugu jirto in Taliban ay qabsato taas oo saameynba ku yeelan karta wadamada deriska ah iyaga oo Taliban ka qaba aragtiyo kala duwan oo ugu horeeyo dalka Pakistan oo dhawaan ra'iisul wasaarahaasi uu hortagay baarlamaanka dalkaasi uu sheegay dalkiisu inuu walaac ka qabo colaadaha ka sii horaya dalka Afghanistan iyo ka bixitaanka ciidamada shisheeyaha saacatay militarigiisu uu xuduud dhoobayo ayna ku filan yihiin sugitaanka amniga ee gudaha Pakistan. waa tahay daawadayaal qaybihii dambe ee wararka dibadda ee Bakal Media ayaan isla soo gaarnay markanina wadamada Khaliijka Sacuudi Carabiya iyo dalka ay xulafada yihiin ee Imaaraadka Carabta ayaa isweydaarsaday hadallo kulul oo naadir ah oo ku saabsan heshiis la xiriira soo saarka shidaalka dalalka ku bahoobay ururka OPEC. Imaaraadka Carabta ayaana aad uga soo horjeeda heshiis ay soo jeediyay dalalka soo saara shidaalka ee ku jira OPEC Plus la yiraahdo kaas oo ama sare loogu qaadayo wax soo saarka. khilaafkan labada dal ee Carabeed ayaa sababay in ismarwaa halis gelin karaya isku day lagu xakameynayo qiimaha shidaalka caalamka ee sare u sii kacaya xilli caalamku uu ka soo kabanayo COVID-19 ayna jirto baahi badan oo loo qabo shidaalka. waxaa iska soo horjeeda koox dhan iyo hal dal taasi oo ah arrin murugo leh. xaqiiqdii waxaa sidaasi telefishinka Bloomberg u sheegay wasiirka tamarta Sacuudiga Amiir Cabdulcasiis bin Salmaan isagoo soo jeediyay in Imaaraadka Carabta oo kaliya ay noqdeen OPEC Plus-na ay xubno ka yihiin 23 dal. waraysi kale oo uu siiyay telefishinka Al Arabiya Amiir Cabdulcasiis ayaa waxa uu ugu baaqay Imaaraadka Carabta inay xigmad iyo tanaasul sameeyaan ka hor kulanka OPEC ee maanta. OPEC ayaana soo jeediyay in soo saarka shidaalka sare loo qaado 400,000 oo barmiil maalinkiiba laga bilaabo Agoosto ilaa Diseembar taasi oo 2 milyan oo barmiil ee ku daraysa suuqyada caalamka ka hor dhamaadka sanadka. si kastaba Imaaraadka Carabta ayaa doonaya kaliya sare u qaadista kooban oo ku kaliya bisha Agoosto waxayna dalbadeen heshiis ka wanaagsan midka la soo bandhigay. Imaaraadka Carabta waxay dalbanaysaa cadaalad la xiriirta heshiiska cusub iyo xuquuqda madax banaani ee aan u leenahay inaan dalbano waxa ay helayaan dalalka kale. waxaa sidaas yiri wasiirka tamarta Imaaraadka Carabta Suhayl Maxamed Al-Marzuuji ninka la yiraahdo. hadallada kulul isweydaarsadeen Imaaraadka iyo Sacuudiga waxa ay naadir ka yihiin bariga dhexe oo ah gobol khilaafyada si hoose looga xalliyo daaha gadaashiisa. haddii aanay OPEC heshiis ku gaarin kulanka maanta dhacaya waxaa sare u sii kici doona ama sare u kici karaba qiimaha shidaalka ee adduunka uu ka joogo. daawadayaal waxaa intaasi naga wararka dibadda ee Bakal Media. fadlan haddii aad channelka ku cusubtahay subscribe saar, haddii aad muuqaalkan ka heshana like saar. mahadsanid daawade.